Waxaan idiin wadaa qiso kale oo cajiib ah waana qiso jacayl oo ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Suuqa Xoolaha. Waxaan rajeynayaa saaxiibadeyda ku xidhan barta YouTube-ka ee Socdaal 24 markay maqlaan in indhaha ay qabsan doonaan la yaabna ay ku noqon doonto qisadan siday u dhacday. Kuwo badan waa ay qosli doonaan, kuwo badan waa ay naxi doonaan, kuwo badan waxay ogaa doonaan in jacaylku uu yahay hanti la qarsado. Waxay qisadaas ku bilaabanaysaa sida tan. Gabar ayaa waxa ay jeclaatay dumaashigeed. Dumaashigu waxa uu qabay walaasheed. Alla xanuun badanaa, walaashaa nin qabo miyaad damac ka raadi lahayd? Waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan. Waxay ka imaaday mid ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Waxay ku soo degtay gurigii walaasheed markay imaaday ayay waxay u qaaday jacayl daran ninkii walaasheed qabay. Jacaylkeedu waxa uu noqday mid ay cisho weysay. Waxa ay weysay jaanis ay ugu sheegato ee ku dhahdo Xasanow waan ku jeclahay. Gabadhii dumaashiga ahayd mar walba waxa ay indhaha la qaadi jirtay Xasan iyo walaasheed marka waqtiyo qurux badan ee wada qaadi jireen. Waxayna inta badan maqana jooga ka ahayd marka guriga ay isla joogaan ilaa wax ma sheegi karto. Waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid ah suuqa ay isku raacaan si markaas ay jaanis ugu hesho. Markii suuqa ay isku raaceen ayay dhahday Xasanow maanta waxaan rabaa inaan wax kuu sheego. Markaas ayuu dhahay ii sheeg, waa diyaar oo anaa kula xalinayo. Markaas ayay dhahday ma kuu sheegi karo oo waan kaa xishoonayaa. Xasan oo hadalka aan iska boobin ayaa markaas dhahay haddii aniga xitaa iga xishoonayso walaashaa u sheeg oo ayada ayaa ii sheegayso. Markaas ayay dhahday waa ay ka sii darantaa haddii ayada aan u sheego arrinkana waa uu ka sii darayaa. Xasan waa uu yaabay. Gabadhii waxay dhahday Xasanow waxaan kuugu sheegayaa qaab message ahaan. Xasan waa uu aamusay. Wax uu sameeyo ayuuna aqoon waayay. Markaas ayuu isdhahay malaha waxbaa soo socdo. Gabadhii durba 2 daqiiqo kadib waxay soo dirtay message kaasoo ahaa Xasan anigu waan ku jeclahay waana kaa helay ayaana ku qorneed. Xasan waa uu yaabay. Wax uu sameeyo ayuuna aqoon waayay. Waa ay soo noqdeen gurigii ayay imaadeen. Xaaladuna waxay ahayd mid ka sii dartay. Waan arki doonaa ayuu dhahay. Xasanna go'aan ma gaari karo oo gabadha walaasheed ayuu qabaa. Markii guriga ay imaadeen gabadhii aad ayay u xanuunsatay. Xanuunkeedii waa uu ka sii daray. Cunooyinkii waa ay ka go'day. Cabitaan warkiisa ha sheegin, xitaa caanaha ha sheegin. Isheediina aad ayay u sii go'day. Maalin maalmaha ka mid ah gabadhii la dhalatay ayaa waxay u doontay daawooyin fara badan. Intii daawooyinka ay ku maqneed Xasan ayaa gurigii imaaday. Xasan gurigii markuu imaaday ayuu ku dhahay gabadhii xanuunsaneed sidee noqotay? Isla markiiba waa ay soo booday sidii qof caafimaad qaba oo kale. Tanaa xanuunsaneh marnaba isma dhehaysid. Xasan waa uu yaabay sida quruxda badan ee gabadhu u soo booday. Isla markiiba markaas ayay ku dhahday Xasan haddaad wax ila qaban 5 saacadood ka hor waan dhimanayaa. Sun ayaana ii diyaarsan, nafta ayaan iska jarayaa. Markaas ayuu Xasan dhahay aniga ayaa wax walba kula qabanayo, diyaar ayaan kuu ahay. Waa ay faraxday. Sidaas ayayna ku wada heshiiyeen. Waxaana lagu wada heshiiyey in gabadhan walaasheed maalmo kadib uu furi doono ayadana booska uu soo geli doono. Gabadhii Xasan uu qabay ee gabadhii kale walaalaha ahaayeen ayaa imaaday. Markay imaaday waa ay yaabtay. Gabadhii oo faraxsan jinnina ka fiyow ayay aragtay. Daawooyin fara badan ayayna waday. Isla markii Xasan iyo gabadhii kale maalmo kadib waxay ku kulmeen gabar kale gurigeeda. Waa la wada heshiiyey si gabadhii nafteeda uu u badbaadiyo. Xasan go'aan ayuu qaatay. Gabadhii hore waa uu iska furay. Walaasheed ayuuna guursaday.
ma dhihi karnaa xasan waxa uu badbaadiyey naftaas si aysan geerida u aadin ama geeri aysan nafteeda sun ugu cabin? Ma dhihi karnaa xasan waxa uu badbaadiyey naf khatar geli lahayd? Haddii adiga ahaan sidee u aragtaa qisadan? waxaad noola wadaagi kartaa qaybta commentiga. waxaa idiin soo gudbinayay anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed. Mahad Socdaal. intaa ku kulmi doona qiso noocan oo kale ah. Nabadgelyo.